بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد maanta badda idinka soo salaamaya jawiga badda qurux badan cirka roobka ma sha Allah tabaaraka Allah waa runtii jawi aad u macaan jawi jacayl jawi naxariiseed jawi farxadeed jawi aan laga sheekeyn karin oo wax lagu cabiro jirin marka badda joogtid oo badda codkeeda maqlaysid oo cirka ma sha Allah tabaaraka Allah daruurta iyo quruxda uu leeyahay runtii lagama sheekeyn karo waa jawi aad u cajiib ah waxaan jeclaan lahaa run ahaantii lamaana kastoo isqaba inay meeshaan oo kala wada joogaan inay waqtigooda qurux badan qaadanayaan inay isku keliyeystaan inay maaragtay ay isu sheegaan inay isjecel yihiin isu sheegaan inay isku faraxsan yihiin aniga xaqiiqatan aad baan u jeclaa jawigaan oo kale waxaan ka sii jeclahay inaan ani imaado waxaan ka jeclahay inay dad laba qof oo isqaba ay yimaadaan aad waxaan u jeclaa asxaabteeda hadday ciyaalkii iga imaan lahaayeen dhihi lahaayeen jawigaa quruxda badan baa aadaynaa xaqiiqatan waan ka aqbali lahaa saaxiibadayna u soo bandhigayaa ifo jawigaanoo kale jiro qof igula nool boosaaso uu doonaya inuu soo qaato maaragtay jawiga farxadda iyo naxariista iyo kalgacaylka leh am ready inaan u hayo maaragtay carruurta iyo gurigaba marka waxaan idin leeyahay jacaylku noolaada isjeclaada iscaashaqa ayaamihiina quruxda badnaa soo wada qaadateen dib ugu laabta isxasuusiya adduunkan waa maalmo kooban maalin dhaweyd waxaan dhegaysanayay qiso runtii aad ii xanuujisay qisadaas waxay ahayd nin iyo xaaskiisii ayaa waxaa ka dhex dhacay muran yar marka waxaa ka sheekeynayay nin shiikh ah ama ay ugu yarteen inuu maaragtay dhex galo arrimahooda khilaafka ka dhexeeya xalliyo kadib ninkii waa la isku buuqbuuqay waa la isjiijiitay waxba waa la xallin waayey wuxuu ku yidhaahday waxaa idii imaanayaa berri subax salaada subax markii laga soo baxo way ka aqbaleen subaxnimadii markii la gaaray salaada ninkii soo tukaday toos buu gurigooda u soo aaday wuxuu la kulmay gabadhii ooyeysa oo qaraacansan oo maaragtay yacni xaalad kale ku jirta wuxuu dhahay maxaa kugu dhacay waxay tiri ninkaygii xalay ayuu geeriyooday saaka salaada subax markaa kacay yacni nolol ugumaanaan tegin oo ilaahay baa oofsaday marka waxaan ka ooyayaa oon ka xumahay bay tidhi inaan maaragtay xalay aan ka faa'iidaysan waayey aan cafin waayey aan heshiin weynay oo nabadkooda seexan weynay sheekadaa waxaan u soo qaatay waqti la wada noolaanaya lama oga soo waqti qurux badan wada qaata waqti isa siiya kelmadahan iyo waxyaabahan iska dhaadhicinay Soomaalidu jacaylka waxba kama taqaan iyo Soomaalidu waa dad adag iyo nimanka Soomaalida romantic waxa iska daaya qof kasta oo bini aadana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qalbigu ku abuuray qalbigiisana wuxuu ka dhexelayaa naxariis iyo maaragtay jajabnaan iyo kalgacayl iyo waxa laga yaabaa hal kelmo inay qofkaas qalbigiisa dhan ku furto isjeclaada isu naxariista isu dhoolla cadeyntu waa sadaqo waqti isla qaata خير بان إذن رجينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.